السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين إمام النووي رحمه الله وسوق بنية شرح الشيخ شريف عبد النور رحمه الله. hoos waxaad ka helaysaa linkiga kitaabka oo carabi ah asoo Soomaali ah iyo asoo English ah, marka kala soc halkaas kana faa'iidayso. waa kitaab aan ku gaabinayo qof kastoo muslima ah inuu kitaabkan uu barto ugu yaraan. السلام عليكم ورحمة الله. taas ayna sadaqa ayna ahayn oo ay iska tahay wax caadi ama muxuu ahaay ayna sidaa ugu aabayeelaynin, marka isaga ugu ajri badan. وعن أبي عبد الله ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل دينار كأفضل بدن ينفقه الرجل نك بحناية وأفضل بدن دينار ينفقه على عياله دينار وكم مصروفي عيال كيسة ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله هي ديوان وكم مصروفي فرس كيسة جهاد في سبيل الله وقدولي ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله هي دينار وكم مصروفي رفقديسة سيقال سعودتي جهاد كل جرته صدح ذاس ayaa ugu ajri badan. marka saddexdaa labana jihaadkay ku saabsan yihiin, midna wuxuu ku saabsan yahay ciyaalkiisa marka kii ciyaal ku saabsanaabu haddana horraysiiyey siduu kii horeba uu u fadilay u horraysiiyey. rawahu muslim. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله waxaan rasuulka allow hal lii أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم أجر ma ku leeyahay ilma abu سلمة ninkeedii buu ahaayo abu سلمة ibn cabdالأسد المخزومي رضي الله عنه oo ninkeediina in adeerkeediina abu ahaayo jihaadka ku dhintay qaswatu uxud dhaawac soo gaaray u dhintay. markaas carruurteedii ay korinaysay bay waxay leedahay masruufka aan carruurtayda masruufayo ajar ma aan ku leeyahay, walastu bitaarikatihim haakada wahaakada kii ka tegaysana miihi dayacmayo xag iyo xag u kala cararaye kollayba waa masruufayaaye ma ku leeyahay ajr. inamaa hum baniya waan carruurtaydii weeyaan kula dayn maaye ajra ma ku leeyahay. taasay marka ugu malaysay carruurteeda ahaanshahaas inayna ajri ugu lahayn, sidii xadiid hadda ka hor aan soo maray yaziid ibn akhnas radia allahu canhu lacagtii uu sadaqaysanayay ee wiilkiisa uu qaatay ugu malayay inayna wiilkiisa sadaqa ugu bixin, nabiguna sala allau alay slam u sheegay inuu ugu baxdo. sidaasoo kale marka ay umu salamana ay u malaynaysaa. faqaala nacam laki ajru maa anfaqti calayhim muttafaqun calayh. haaho waxaad leedahay waxa aad ku masruufta ajarkiisa waad leedahay. xadiidka zaynabna iyaduna isaguna insha allah waa imaan doonaa. haweenaydii cabdullahi bni mascuud ahayd muxuu ahay ninkeeda iyo carruurteeda iyo waxay siisay ku sadaqaysatay inay sadaqo u yihiin uu u sheegay nabiguna sala allau alay wasalam. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في xadiiثihi الطawiil اladي qadamnaahu xadiidkii sacd ibn abi waqaas ee dheeraa ee jiradiisa ku saabsanaa uu nebigu soo booqday salى الlahu عalيه walي slam iyo hadalladii uu yidhi oo inoogu soo hormay raqab sita xagga awalka inoogu soo hormaray kitaab اlikhlaas inoogu soo hormay fii awali اlkitaabi fii baabi الniya kusoo hormarayba waxaa kusoo nayay ana rasuula الlahi salى الlه alay slm qaala lahu وإنka lan تنfiqa نفقة تbتغي bha وجه الlahi إla أجirta عalayha حatى ma تجعل في امرأatika متfq عalayh. maxaaha adigu نafaqo ma bixinayso masruuf ma bixinaysid aad wejiga alla ku rabto o dan alla aad u bixinayso ilaa ujirta bihaa waa laga ajri siinayaa xatى ma تجعل في امرأatika xataa waxaad af haweeneydaada gelinaysa kolka ku tahay متfq عalayh. وعن أبي مسعوud البdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه. ninku markuu ciddiisa masruufo masruuf oo hor alla geysanaayo oo ajrigeeda oo alla kaga dalbanaayo sadaqad bay u noqonaysaa متfق عalayh. marka niyadaasaa loo baahan yaha waxaa laga yaabaa qofku inuunu niyadaas badereensanayn yaa laga yaabaayo taasi marka ajrigii ay wuxuu dhinto. وعن cabdالله بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qاal qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم
kafaa bilmari إثman an yudayica man yaquut. qofka waxaa ismi ugu filan inuu baylihiyo dadkii uu quudinaya masruufayey. rawaahu xadiiثun صaxiix rawaahu abu daawuuda wagayruhu. xadiidku waxaa weye صaxiixa buu leeyahay alimaamu الnawowi radي allahu canhu, lakin xadiidku صaxiix xasan weeyaan. oo waxaa kaloo wariya keyrka uu sheegayaana waa axmed iyo xaakim iyo bayhaqi ayaa iyaguna wariyay, waana xadiid xasana xasanahu sheikhu اlalbani fii صaxiixi اjaamic الصaغيir. warawahu muslimu fii صaxiixihi bimacnaahu, lafdigan aan ahayn oo ah kafaa bilmari إثman an yaxbisa canman ymliku quuta. qofka waxaa ismi ugu filan inuu ka celiyo ka xanibo dadka uu muxuu ahay uu hantiyo quudkooda. xadiidkan kada qisuu ku keenay cabdullaahi radi allahu canhu, wuxuu ahaa ninkii qahramaankiisa ahaa, yani kii wakiilkiisa ahaa ee masaariiftiisa iyo maalkiisa u qaybsanaa wakiilka uga ahaa, ayuu wuxuu ku yidhi raqiiqi ma siisay quudkoodii, masruufkoodii ma u bixisay raqiiqi, yani addoomihiisii iyo qadamkiisii iyo markaasuu haayiri. markaasuu muxuu ahaayey ku adkeeyey oo uu yidhi nabiga ka maqlay sala allahu alayh waali wasalam isagoo le sidaan tadalehe sii quudkood oo marna ha ka celinin. markaa dadka uu taxta tasarufka ku jira weeye, addoomma hadduu leeyahay iyo hadduu shaqaalo leeyahay uu masruufkooda isagu hayi iyo haweenkiisa iyo carruurtiisa iyo martidiisa waxaas. وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه أن النبya صلى الله عليه ولي وسلم qاal ma min yومi يصبح العibaadu فيhi ma jiro maalin oo addoomuhu ay waabariistaan ilaa malakaani yanzilaani, laba malag unbaa soo dega, fayaqulu أxaduهmaa midkood wuxuu dhahayaa اللaهuma أcطi munfiqan khlفaa, allow sii qofkii wax bixiya bedel sii, waxa uu bixiya bedelkiisa allow sii. وayaqulu الآخر ka kalena wuxuu dhahayaa اللaهuma أcطi mumsikan talفaa, allow sii kii ceshada wixiisa heshada baaba allo siiyo maalka ka baabi'i. muttafaqun calayh. marka labadaa malag baa maalin kasta sidaas ku dhawaaqaya oo midna dadka wax bixiya uu u ducaynayaa, midna uu habaarayaa dadka muxuu ahay wixiisa ceshada uu habaaraya, waana loo aqbalayaa midkood walbaba. xadiidkan uguna wuxuu kusoo noqon doonaa raqam 548. وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. gacanta saraa ka fiican gacanta hoose. gacanta sarana marka waa midda bixinaysa ee ku ridaysa, tan oo muxuu ahay hoosena waa midda horsanaysa ee qaadanaysa weeyaan ee baryotamaysa. sidaasuuna ku fasiray nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam. wabda kuna bilow biman tacuulu, dadkaad masruufayso, yani wax bixi weeyaan, yani gacanta sare gacanta fiican gacanta hoose ka fiican marka la leeyahay hadii goor gacantaadu ha sarayso aduu ka wax bixinaya ahow weeyaan. laakiin haddana wax bixinta si loo kala leeyahay ee dadka ay kugu kala mudan yihiin yuu sheegayaa. markaasuu leeyahay wax bixinta waxaad ku bilowdaa dadka aad masruufaysa ee nafaqaynayso, kuwa horta ku bilow nafaqadoodii u diyaari, markaas wixii soo hara dadka kale ku sadaqayso. وkhayru الصadqati ma kana can dahri غinaa, sadaqana waxaa ugu fiican midda hodantinimo xaggeed, yani uu reebtay qofka wax ku filan u reebtay, taasaa ugu fiican. وman ystacfif yucifhu الlah وman ystغni yugnih الlah. qofkii is-ilaaliya alla waa ilaaliyaa, qofka hodan iska dhigana alla waa hodmiyaa. yani qofka wixiisa isku fillaysiiye ee ku qanca ee u qaata inuu wax hantidiisa alla uu siiyey ay ku filan tahayna alla dadka uma baahiyo. qofkaan dadka isu baahinin dadka alla uma baahiyo. qofkii xaraanta iyo baryada iyo waxyaalaha iska ilaaliyana isna alla waa ilaaliyaa. xadiidkan kada 3 faqradood buu ka kooban yahay. faqrada hore waxaa weeye alyad اlculyaa khayru min alyad الsuflى. faqradaas iyada uhu mar kale imaan doontaa, raqam 527 bay ku imaan doontaa. faqrada kalena waxaa way ibda biman tacuul وkhayru صadqati ma kana can dahri غina, waa 4 faqradood. ibda biman tacuul iyo khayru صadqati ma kana can dahri غina. midda afraada ugu dambaysana waxaa wa man yastacifa yucifuhu اllah وman yastagni yugnih الlah.
waxaa marka tantadu iyadu in tantadu hadda ka hor bay noo soo hormartay xadiidka raqamkiisu ahaa 26 ee noogu soo hormartay xadiidkii abu saciid alkhudri radi allahu canha weliba waxaa kaloo la sii jiray waman yatasabar yusabirhu llah qisuuna lahaa marka faqaraadkaas baa qaarna soo noqnoqonayaan qaarna ayna soo noqnoqonaynin marka macnaheeduna waxaa sa hadda ka horba soo maray qofku siduu alla siduu isagu iska dhigaa alle ka dhigaya qofkii dadka is-hoos dhigaya dadka isu baahiyana weligii baahidaasi ku jiraya ma baahi baxayo qofkiisa dadka iska deeqtoonaysiiya alla waa deeqayaayo alla uma baahinayo qofkii muxuu ahaayey wixiisa ku qanco oo isku filaysiiyana alla waa ku filaysiinaya siduu ninkii shaacirka ah uu yidhi man qara caynan bicayshihi nafca wixii qofkii ku farxa oo ku sabra maciishadiisa alla waa ku anfacaya rawahu الbukhaariy baabu اlinfaaqi mima yuxibu wa min aljayid bixinta qofku uu wax ka bixiyo waxa uu jecel yahay iyo waxa wanaagsan ee waxa xuna uu nacay uu ka deeqtoomay uuna bixinin marka waxa uu jecel yahay iyo waxa jayidkaana inuu wada bixiyo ma dhahayo xulaminma qaarkii inuu wax ka bixiya qaala allahu tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ma gaadhaysaan bir yani khayr falid ma gaadhaysaan oo dad khayr falayaala ma ahaanaysaan ilaa aad wax ka bixisaan mima tuxibuuna waxaad jeceshihiin waxa aad jeceshihiin ilaa aad wax ka bixisaan dad khayr fale oo wanaagsan oo baariyana ma noqonaysaan wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alأrض walaa tayamamu alkhabiisa minhu tunfiquun yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow anfiquu wax ka bixiya min طayibaati ma kasabtum waxaad shaqaysataankiisa wanaagsan wax ka bixiya طayibaadka laba macno waa lagu isticmaalayo macno waxaa weeye kiisa xalaasha ah macnaha kalena waxaa weeye kan jayidka ee wanaagsan marka labada macno isku markii in loola jeedana waa iska suurowdaa waxa wanaagsan eed kasbateen wax ka bixiya oo xalaasha weliba aad ku kasbateen aayaddantada waxaa fuqahadu ay usoo deliishadaan zakaatu curuudi tijaara badeecada in wax laga bixiyo zaka ay ku waajibaysa usoo deliishadaan mas'aladaa iyada ah wax xadiid marfuuca oo sugan oo iyada u khaas ihi ma uu jiro laakiin cumuumaadka unbay soo gelaysaa adilada noocan oo kale iyo cumuumaadkooda waa soo gelaysaa wa mima akhrajnaa lakum min alard waxaan dhulka idinka bixinay qaarkiisna isagana wax ka bixiya taasna marka iyadana waxaa loo soo deliishadaa zakaatu aلzuruuci wالhimaar lakiin iyada kuwaas adilo gaarkeeda oo khaas aho xadiid fara badana bay leedahay walaa tayamamuu ha u qasdina alkhabiisa minhu kiisa radi'a kiisa xun waxaas aad kasbateen iyo waxaad dhulka idinka baxay iyo wixii aad baxsanaysaanba howlaha nool iyo wax walbaba ha u qasdina kolkaad wax baxsanaysaan midkiisa xun ee khabiidka yani khabiidkana midka radi'a ba hadda laga wada ka xaaraamta maba ilan xaraamyadu maba anfacayse tunfiquuna ood wax ka bixinaysaan iskaad wax ka bixisaan ha u qasdina waliba aayadda way sii wado walastum biaakidihi ila an tuqmiduu fiihi waclamu ana allaha ganiyun xamiid baa la leeyahy kan radii ahoo haddii idinka la idin siin lahaa oo qof aad xaq ku lahaydeenu uu idin siin lahaa ama iyo diini wax ku lahaydeenu aydan qaadateen ilaa inaad indhaha isku qabataan oo xaqiinii qaarka ka tanaasusaan mooyaane idinku raalli noqoteen ka ha bixinina ee waxaa jayidka ee wanaagsan ee naftiinu ay jeceshahay wax ka bixiya waa kaan hadda ka horna soo marray kolkii la weydiiyey rasuulka sala allahu alayh waali wasalam sadaqada tee ugu fiican uu yidhi waxa ugu fiican adiga oo fayow oo muxuu ahaaye adiga oo fayow oo maalka jecel oo hodantinimana rajaynaya faqrina ka baqaaya inaad wax bixiso ee markaad naftaada ka quusato kolka inaad wax sadaqaysato ma ah kaasoo kale marka wuxuu la mid yahay qof intuu dhargay kolkii hore oo gaajisna waxbaan bixinayn goor dambe hambadiisii masaakiinta siisii oo kale وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل
adeerka abu طalxa magaciisu zayd ibni sahli weeye yaa wuxuu ahaa ansaar ninka ugu maal badan madiina dhexdeeda oo timireed ah beero wanaagsan buu lahay sa ugu maal badnaa wa kaana axabu amwaalihi ilayhi bayruxa maalkiisana kuu ugu jecel yahay wuxuu ahaa beertaa bayruxa la yidhaha beer magaceeda bayruxa la dhihi jiray wa kaanat mustaqbilata almasjid masjidkay kasoo horjeeday wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam yadkuluha wuu geli jiray rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wayashrabu min maa'in fiiha طayib biyo macaan oo ku yaalla ceel biyo macaan oo ku yaalla yuu ka cabi jiray oo harkeeda arsan jirayo wa qaala anasu radia allahu canhu falamaa naزlat hadihi اlaaya aayaddantada markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ayuu abu طalxa radia allahu canhu aayaddaas ayuu ku camal falayaa radia allahu tacaala canhu saxaabada marka sidaasay ahaayeenoo markuu wax khayra ay maqlaan bay ku kala tartami jireen oo khayrka ayaan lagaga badin qof waliba dhihi jiray oo uu ku camal fali jiray markay wax shar ah iyo aayado canaanan iyo waxyaala dadka qaarkood eedaynaya markay arkaanna qof waliba wuxuu isdhihi jiray arma-adii lagula jeedaa naftiisu dib ugu noqon jiray faqaama abu طalxa u kacay ilaa rasuuli اllahi salى اlه alay slm faqaal ya rasuula allah in allaha tacaala anzla calayka alla wuxuu kugu soo dejiyey lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaas alla kugu soo dejiyey wa ina axaba maalii ilaya bayruxaa maalkaygana beertaa bayruxaa baan ugu jeclahay wa inahaa sadaqat lilahi tacaala sadaqo weeye dar alla aan u sadaqaystay arjuu biraha wa dukraha cinda allahi tacaala aan ka rajaynayo khayrkeeda iyo kaydkeeda alle aan ka rajaynayo fadachahaa dhig oo yeel yaa rasuula allah xaysu araaka allah meesha alla kutusiyo nabigu marka sala allahu alay wali salam kala tashanayaa oo u wakaalanaya wuxuu leeyahay dadkii ada ay kula noqoto si ada kula noqoto u gal adaa kuu dhiibay taladeeda waana sadaqaystay marka rasuulka isagoo qaadan maayo le sadaqa weeyaan faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi bakin riwaayada qaarkoodna waa ku celceliyaan kelimada bakihina waxaa weeyaan waa kolkii lagu celceliyo bakinna waa la yidhaahaayo waa la tanwiiniyaa bakna waa la yidhaahaayo waa la reebaa macnaheeduna marka waxaa weye wixii loo bogayo kelimatu istixsaan weeyaan wanaag badanaa bay marka ka dhigan tahay dalika maalu raabix kaasu waa maal ribxay waanu bixiyey ogow maalkii uu bixiyey ayuu nabigu sala allahu alayh waali wasalam waxana aanu ku bedelanin yuu leeyahay waa maal faa'iday wuxuu ka helay faaidadu ka helayaa ka badan riwaaya kalena waxay dhahaysaa maalu raayix waa maal soo hoyday soo xaragalay yuu leeyahay maalkaa tagay malayn waqad samictu maa qulta waan maqlay hadalkaa tidhi wa inii araa aniguna waxaan u arkayaa kugula talinayaa an tajcalahaa fi laqrabiin inaad dhigto ood geliso u qaybiso qaraabada dadka ku dhadhow faqaala abu طalxata radia allahu canhu afcalu ya rasuula allah waan yeelaya ya rasuula allah faqasamahaa abu طalxa u qaybiyey fii aqaaribihi wa bani camihi aqaaribtiisii iyo ilma adeeradiisii u qaybiyey muttafaqun calayhi aqaaribtaasuu u qaybiyey aqaarib kolka la yidhaha waa jamcu aqrab dadka aada ugu dhadhow weeyaan waxaa ku jiray qaar ay dhowr oday kala tirsadaanna waa ku jiraan ubay ibn kacbi iyo oo kale marka aqaarib marka la yidhaaho ina adeerka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo ina iyagaasuba kulli waa soo wada gelayaan muttafaqun calayh waxaana kusoo noqon doona mar labaad 300 iyo 20 qowluhu maalu raabix huwa fi صaxiixayn raabix waraayix labadaba waa lagu wariyey bilbaaءi اlmuwaxada raabix wa bilyaa اlmuhanaa ya-da labada dhicbeelana waa lagu wariyey raayix ah ay raayixun calayka nafcuhu mid war nafciisa kuusoo hoyanaya weeye raabix haddii la yidhaha waa min aribx waa la garanaya wa bayruxaa xadiiqatu naklin beer timira bay ahayd waruwiya bikasri اlbaaءi wa fatxa bayruxaa iyo biruxaa labadaba waa lagu wariyey baabu wujuubi amrihi ahlahu awlaadahu lmumayiziin
وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاab منهي عنه أمرka uu qofku amro caruurtiisa kuwa mumayزinta wax karadka a weeyaan kuwa si yaryar maaha iyo dadka isagu uu xukumo oo dhan qaraabadiisa iyo qaadimiintiisa iyo waxyaalahaas inuu amro taacada Allah oo uu ka reebo waxyaalaha xaaraamta ah uu ka reebo oo uu adbiyo oo ka celiyo inay xaraam sameeyaan inay qofka waajib ku tahay taas marka carruurta yaryar intayna weli qaangaarin iyagu dembi ma laho waxaa un markay sameeyaan iyaga loo ciqaabi maayo laakiin waalidka iyo wixii la mid ah ay waajib ku tahay inay arrintaa ka celiyaan oo iyagaa loo ciqaabaya haddii ay ka celin waayaan qaala allahu tacaala waamur ahlaka biالصalaati wastabir calayha far ahalkaaga salaad far oo kuna sabir iyagana ku sabirsi wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaas walxijaara ila akhir aaya dadkiina mu'miniinta ahow ka celiya naftiinna iyo ka ilaaliya naftiinna iyo ahalkiinnaba naar oo shidaalkeedu uu yahay dadka iyo dhagxanta lagu shido naartaa ka ilaaliya sida marka looga ilaalinaya qofku naftiisa uga ilaalinayaana waa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha naarta lagu galo ee muxaramaadka siduu ahalkiisa uga ilaalinayana iyana waa inuu ka celiyo waxyaalahaas xaaraamta ee naarta lagu galo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما baa wuxuu qaatay xabad timirahoo timirtii zakada ka mid ah fajacalahaa fii fiihi afkiisuu gashaday faqaala rasuulu llahi sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yihi kakh ama kekh waa yac ah oo kan ka nidhaahn oo kale waa eray muxuha carruurta iyo wixii aan caqliga lahayn wax lagaga sajriyo weeyaan derbigaha iska tuur amaa calimta annaa laa naakulu sadaqa miyaadan ogaanin anagu inaynaan sadaqada cunin innaga muxua nabiga sal ly slm qarabadiisii buu ka wada inay sadaqadu xaraam naga tahay inaan cunin miyaadan ogayn tuur muttafaqun calayh marka rasuulku sala allahu alayhi waalihi wasalam canugaas uu muxuu ahaa wowga u yahay oo xataa aabbihi iyo hooyadiiba ay nool yihiin oo isagu toos mas-uuliyadiisu ayna u saarayn ayuu wax dadka waaweynka xaaraam ah oo weliba usradooda un gaar ahaan uga xaaraam ah yuu ka celiyey muttafaqun calayh wa fii riwaayatin annaa laa taxilu lana sadaqa annaa laa naakulu sadaqa halkay tii hore ka tiri annaa laa taxilu lana sadaqa bay tana tiri wa qowluhu kakh ama kekh waxaa weeye yuqaalu biiskaani alkhaa wa yuqaalu bikasrihaa kakhin maca tanwiin wahiya kalimatu zajrin liلصabiyi can اlmustaqdaraat carruurta yaryar waxa qununka wixii lagaga celi ish iyo waxaasoo kale bay ka dhigan tahay wa kana alxasanu radia allahu canhu sabiyan canug yar buu ah xasanna kolkaas radia allahu canhu oo weli aan qaan garin oo aan kuna dhoweyn xataa leannahu waa kaan sheegnay kolkuu nebigu sal ly slam geeriyooday inuu sideejiriya meelaha ahaa wa can abi xafsin cumar bni abi salama cabdillahi bni cabdilasad abu salama magaciisa weeyaan abu salamaha wiilka ka dhalay umu salama ninkeedii rasuulka sal ly slm ugu horreeyey ahaa baa la dhihi jiray cabdullahi bni cabdilasad rabiibi rasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam ninka rabiibkiina waa cumar rabiibkana waxaa la yidhaha qofka la koriyey baa la yidhaha raabigana waa ka wax koriyey qaala kuntu gulaaman fii xajri rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaan ahaa canug yar oo dhabta nebiga sala la alay sl jira yani nebigu uu koriya baan ahaa ilin hooyadiisuu qabay wa kaanat yadii tatiishu fi saxfa gacantaydu waxay ku warwareegi jirtay xerada kolkaan wax cunaayo yaanan meel keliya ka qaadan jirin gacantaydu ku warwareegi jirto hadba meel ay ka qaadan jiray faqaala lii rasuulu llahi sal l sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi yaa gulaam sami اllaha tacaala wakul biyamiinika wakul mima yaliik yarow magaca alla qabso bismi illaahi dheh oo midigtaada ku cun
oo dhanka kusoo xiga ka cun. saddexdaas aadaabta akliga ayuu baray markaa nebigu sala alla alay slam. wuxuu canugana ka celiyey hooyadiis oo qabay adeerka u ahay abu salame iyo oo nebiguna sal ly slam walaalay ahaayeen xagga ridaac bay walaalo ku ahaayeen, oo kolkaas marka isagu uu korinayay uu ka celiyey wax xaaraam dadka waaweynka ah inuu sameeyo oo aadaabta cunidda uu baray. famaa zaala abu salama leh ee waxaa jeeda cumar baa leh marka cumar baa wuxuu sheegayaa inuu adabtaa nebiga sala allahu alay slam sidaa u adbiyey uu qaatay oo uu laazimay dariiqada iyada ah. markaasuu leeyay famaa zaalat tilka middaasu ma aanay ka zuulin bisinka oon u qabto iyo midigtoon wax ku cuno iyo dhankay soo xigoon ka cuno dicmatii sida aan wax u cuno kayfiyadaan wax cuno bacdu intii ka dambaysa hadalka taniya hadda maalintaas intii ka dambaysa canug yar uu ahaa ma aanan ka zuulin ayuu leeyahay inaan sidaa wax u cuno sidaasaan laazimay. qowluhu tatiishu macnahu taduuru fii nawaaxi saxfadana waa xeedhada. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته dhammaantiin midka ku wax jira weeyana wax ilaaliyo mas-uuliya la saaray وكلكم مسؤول عن رعيته dhammaantiinna midkiin walbabana waa laga waraysan doonaa raciyadiisa. الإمام راع ومسؤول عن رعيته qofka imaamka yani madaxdiihi waa raaciyo dadweynihiisaasu raaci u yahayo waana laga waraysan doonaa qof walbaba xaqiisa inuu siiyey iyo inuuna siinin baa la waraysan doonaa. marka qof walbaba inta malyuun ou dadkaasi uu yahay waxaa ka saaran mas-uuliyad gaara ka saaran. cumar ibn cabdilcaziiz radia allahu canhu yaa markii uu ninkii in adeerkiisa ay ka horreeyey ee sulaymaan ibn cabdilmelik ee dhihi jiray madaxda uu ahaa isagoo la socda ayuu soo xajiyey. markaasuu sulaymaan wuxuu ka yaabay dadkii faraha badnaa ee soo dhoweynayay ee usoo baxayey istiqbaalkiisa usoo baxayey. markaasuu cumar ibn cabdilcaziiz u sheego uu yidhi feeri bal dadkan kada farabadnidooda dadkan inoo soo baxayay. markaasuu wuxuu yihi haa-ulaa'i khusamaa'uka yawma alqiyaama dadkaa aad arkaysa maanta ku soo dhaweynaya ma arkaysa saa fara badan aad ku farxayso sacbayntay ku sacbaynayaan iyo hitaafkooda iyo aad ku farxayso qiyaamaha iyagun baa kula doodi doona. qof waliba xaq buu kugu leeyahay xaqiisa inaad siisay inaadan siinin waa kugula xisaabtamaya. markaasuu ninkii qalbi jabay intaasuuna ka rabay yani inuu kibirkii waxaasiya ka rido. wاrajulu raacin fii ahlihi wamas-uulun can raciyatihi ninkuna raaci buu ciddiisa ka yahay qoyskiisa waana laga waraysan doonaa waa lagala xisaabtami doonaa. wاlmarأaةu raaciyat fii beyti zawjiha wawaladihi baa riwaa horan soo marrayna ku jirtay. naagtuna waxay raaci ka tahay ninkeeda gurigiisa wamas-uulat can raciyatiha caruurta iyo alaabta iyo raashinka iyo waxyaalahaas oo dhan xil baa iyadaa mas-uul ka ah iyadaana laga waraysanaya qiyaamaha lagala xisaabtamaya. wاlkhaadimu raacin fii maali sayidihi wamas-uulun can raciyatihi adeeguhuna shaqaaluhu isaguna raacibuu maalka sayidkiisa u yahay waana laga waraysan doonaa. weliba riwaayo kale waxay ku dartaa wiilkuna xoolaha aabbihi isaguna sidoo kale uku yahay. fakulukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin raacibaad wada tihiin tii a hortaara ku bilowda cumuumka eed haddana kusoo khatintay xadiidka waana laydinka waraysan doonaa muttafaqun calayh. waana xadiidkankadu isagoo cibaaradu wax yar kala duwan tahay ayuu inoogu soo horumaray raqam 283 wuxuuna kusoo noqon doonaa mar saddexaad رقم 653. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده أwowga kan uu u noqonayo ضميirkaas waa aabbaha شhucayb weeyaane ma cmr maaha marka waana cabdاللahi بن cمr بن الcاas weeye awowgiisaas la sheegaya صaxaabiga ahaa. qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali وsلم
muruu أwlaadakum bالصalaaةi wahum abnaءu 7 siniin farac caruurtiina salaada inay tukadaan farac wiilad iyo gabdhaba iyaga oo 7 sano jira. wadribuuhum calayha ku garaaca salaada tarkigeediya ku garaaca wahum abnaa'u 10 iyagoo 10 jir ah. wafariquu baynahum ku kala fogeeya fi lmadaajici gogoshana gogosha u kala duwa oo isku meel ha seexinina iyo edab darri iyo waxyaala isku baran. kolkay mumayisiin noqdaan salaadana farac oo adbiya adaabtana marka waxaa ka mid a inay muxuu ahaay sidii aan kusoo marray xadiidkii cumar bn abi salama radia allahu canhuma in aadaabta cuntada iyo aadaabta seexadka iyo iskuulgalka iyo waxyaalahaasa la barayaa. marka tan aadaabtii seexadku gaar ahaan u sheegay isku meel ha seexinina. xadiidun xasanun rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana sidaa uu sheegay alimaamu الnawowi radia allahu canhu xadiidku waa xasan oo xasanahu sheikh اlalbaniy fi saxiix اljaamic الصaغيir. wa can abi huraya sabrata bni macbad aljuhaniyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam callimuu sabiya الصalaaةa ل7 siniin bara sabiga canuga bara salaada bara keliya maha marka oo camal ahaanna ku bara afkana uga sheega oo amra ل7 siniin 7 sano markuu jiro. wadribuuhu calayha ku garaaca ibna 10 siniin 10 jir isagoo kolku 10 jir yahay hadduu salaadii uu baybayleeyo uu googooyo iyo ku garaaca. marka 6 jir 7 iyo 8 iyo 9 inaha markuu jiro marka waa lagu garaaci maayo laakiin waa la jeclaysiinayaayo lagu waaninayaayo lagu muxuuha lagu canaananayaayo hadiyo wax la siisay iyo waa la jeclaysiinaya. laakiin kolkuu 10 jiro haddii uu googooyo salaadii u fiicnaan waayo waa lagu garaacaya. xadiidun xasanun rawaahu abu daawuuda wالtirmidiy waqaala xadiidun xasanu صaxiix. xadiidkan kada marka wuxuu ka dhigay alimaamu الnawowi radia allahu canhu iyo tirmidi labaduba xasan bay ka dhigeen xadiidkan kada. sheekh اlalbani isagu صaxiix buu ka dhigay. wadaadkan kada la yidhaha cabdilcaziiz rabax isagu xasan buu ka dhigaya wuxuu ku raacayaa nawowi iyo tirmidi buu ku raacayaa. walafdu abi daawuud abu daawuud lafdigiisuna wuxuu ahaa muru sabiya bالصalaaة idaa balaga 7 siniin kolkuu ل7 siniin tay riwaayada hore ka ahayd idaa balaga 7 siniin bay dhahaysaa. waana صaxiix riwaayadaasuna iyaduna oo صaxiix aljaamic الصaغيir ayuu ku saxiixiyey labada riwaayaba الsheikh اlalbani xafidahu اllah. baabu xaqi اljaari wاlwasiyati bihi deriska xaqiisa iyo dardaaranka layskula dardaarmay deriska hagaajintiisa iyo dhaqaalintiisa. qaala allahu tacaala wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabudu oo waxbaha ugu shariig yeelina wabilwaalidayni ixsaana yani waaxsinuu bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan u sameeya wa bidi lqurbaa kuwa qaraabada nimadada u saaxiibka ee dhow walyataama iyo agoonta waalmasaakiina iyo kuwa saboolka ah waljaari iyo deriska dilqurbaa ee dhowaanta u saaxiiba. dhowaanshaha la sheegaya dilqurbaa laleeyahay labay ku suurowdaayo inuu yahay derisnimadiisa dhow oo gurigiisa aada idinku soo dhow yahay. waljaari ljunub iyaduna sida oo kale weeyaan oo ka idinka fog deriska idinka fog oo xoogaa idin jira len waa ka alxaq wen yihiin. marka mid kalena waxa weeyaan aljaari dilqurbaa qaraabanimada ka saaxiibka yani ka idinla dhashay in adeerka iyo walaalka iyo waljaari ljunubina marka ka ajnabiga ah. wasaaxibi biljanbi saaxiibka dhinacaaga jooga saaxiibka dhinacaaga joogana waa qofkaad meel iskula nooshihiin ama meel iskala shaqaysaan ama meel wax iskula barataan ama meel guri wada degan tihiin ama islaanta qofka uu qabo kolkta waa lagu fasiraa yani qof alla qofkii meel aad ku wada nooshihiin oo dhan weeyaan. wabni sabiili iyo qofka musaafirka iyo wamaa malakat aymaanukum waxay hantiyeen gacmihiina ay hantiyeen ee aada leedihiin intaaba ixsaan u sameeya. وعn بن cمر وعائشhaةa رضي الله عنهم
qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيyه wali wasalam ma zaala jibriilu radia allahu canhum waa in la yidhah cumar iyo wiilkiisa iyo caaisha saddexdaa saxaabi baa la sheegay ma zaala jibriilu yuusiinii biljaar xataa danantu anahu sayuwariثuhu siduu qoran yahay idinku qoraaday lakin iska dhaafa qoraalka xabaa doorinay lakin kolkaad aqriyaysaan radia allahu canhum dhaha isaga waa imaam nawowi radi allah anhu saasoo kale dardaarmi jiray muttafaqun calayhi wuxuu leeyay jibriil baan iga zuulin inuu dariska igula dardaarmo dariska waxa u samey dariska kanuu yeel dariska ogow uu igula dardaarmaya ilaa aan uga maleeyey inuu dhaxal siinayo oo aan dhahayo markaad dhimato dariskaaga waa ku dhaxlo ama qofkii dhintaba dariskiisu ha dhaxlo inuu dhihi doono ilaa aan uga maleeyey siduu u adkeynayay ee ugu dheeraaday muxuuha dardaarankii uu dariska igula dardaarmay muttafaqun caleyh وعn أbي dr رضي الله عنه qال qاla رsuل الlahi صلى اه علي sلم ya أbا dr أbu dhryow إdaa طبkta maraqatan markaad maraq kariso faأkir maaha biyaheeda badi وatacaahad ka warhay oo wax ka sii jiiraanaka dariskaaga rawahu mslim yani waxa wey markaad hilib intaad soo ibsato maraq karsato in yaroo macaano adig iyo ciddaadii idinku filan ha ka dhigin badi biyaheeda badiyo haba iska yar dhadhan xumaada marka mxuu ahay kolka dadka dariskaaga aan wax ka siin وفي رواية له عن أبي ذر يعني لمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني صلى الله عليه وآله وسلم idaygaygi yani rasuulka صلى الله عليه وسلم wuxuu la dardaarmay إdaa طبkta maraqة faأkir maa'ahu kolkaad maraq kariso biyihiisa bari ثuma انdur fiiri أhla beyti min jiiraanika qoys oo dariskaaga afiiriyo faasibhum minha wax ka gaarsii bimacruufa si macquula si macquulaho ciddaadiina aadan ka wada shubin oo aadan xirmaaninin iyagiina wax yaroo farya aan ku ahayn wax uga sii wila muxuu aha waxaa laga yaabaa marka dadku had iyo goor hilib ma helaanoo markaad hilibkaaga iyo gurigeena iyo gurigooda ad isku dhow yihiin hilibkaas hanuuntiisa iyo casiya kasoo baxaysa kolkaad soo ibsatay guriga sii gelinaysa inay ku arkayaan markan guryooda ba iska suurowdee ha qadinin iyagana ahalkaagiina ha qadinin وعn أbي هريرةa رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم qاal والlahi laa yuؤmin والlahi laa yuؤmin والlahi laa yuؤmin wallahi inaanu mu'min ahayn wallahi inaanu mu'min ahayn wallahi inaanu mu'min ahayn saddex goor ku celiyey qiila man ya rasuul allah waa kuma kaasu ya rasuul allah aan mu'minka ahayn qaala markaasu wuxuu yidhi alladii laa ya'manu waa ka uunu ka aamin noqonaynin jaaruhu dariskiisu bawaa'iqahu dhibaatooyinkiisa bawaa'iq waa jamcu baa'iqa isagoo fasiri doonee waa dulmigiisa iyo sharkiisa laga wada qofka dhibaya dariskiisa ee dhibaato u geysanaya xataa ma aha uu dariskiisu cabsi ka qaba kole ku tahay mu'min ma aha inuu marka dariskaagu ku aamino oo yidhaaho ciddaas kolla dhibaata inooga imaan mayse cid wanaagsan weeyaanoo ilmahooda waa adabsan yahay ilmahooda waxayna yeeli maayo khaadimimadooda waxba ina yeelmayso waxba inaga xadi maayaan dhibaato inoo geysan maayaan oo alaabta iyo idinka ilaashanin oo ayna albaabka xaggiina xigaa ayna soo xidhan dhihin inaga ilaaliya ciddaas waa cid xune marka kolba haddayna sidaa heerka ayna gaarin qofku mu'min ma aha waynu dariskaagu ku aamina متفق عليه وفي رواية لمسلم laa يدخل الجنة man laa yأmن jaaruhu bawaaئqه janno ma gelayo qof aanu dariskiisu ka aamin ahayn sharkiisa iyo dulmigiisa albawaaئqu alghawaa'il والshuruur hawaa'il iyaduna waa jamcu ghaa'ila waa dhibaatooyinka iyo sharka ayaa laga wadaa yani bawaaئqda ayb وعنه رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ya نساء المسلمات laa تxقirana جاaraة لجاarتha walow firsana shaatin متفق عalayhi haweenka muslimaadkow naagi deriskeeda yayna عalaykum السلام ورaحمaة الlah naagina deriskeeda yayna u yaraysanin oo ayna yaraysi daraaddii uga daynin wax ay u hadiyeyn karto oo ay u heli karto walow quud neef aryaba ha ahaadee xadiidkuna waa muttafaq calayhi oo waxaynu ku soo marray raqamiya 24 ayaan ku soo marray وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal laa ymنع jaarun jaarahu an yغriza khashabaة fii jidaarihi yaanu u diidin deriskiisa inuu ku qabsado qori
muxuaha jidaarkiisa. yani waxaa weeye labada guri ee isku xigta, berigaas guriga carshaan bay ahaan iska gaagaabanoo markuu qof rabo dariskaagi uu rabo inuu gurigiisa dado oo saqfiga uu saaro oo yani marka uu u baahdo in alwaaxdaas uu ku gudbaayo ee saqfiga uu saarayo inuu derbigaaga ku qabsado oo guryuhu aada isugu dhow yihiin, ha u diidin hadhi ha iga soo gaadhsiinin, derbiga ha iga soo gaadhsiinin qoryahaaga hadhihin. uma yaquulu abu hurayrata radi allahu canhu, markaasu abu hurayra dhahaya markuu xadiidkan kala wariyo uu wuxuu dareemaya dadkii oo arrinta aan u bogayn inuu hoosu foorasanayo oo loo arkayo aan caado ka dhiganin. markaasuu dhahaya maa lii araakum canhaa mucridiin, maxaa iigu wacan waxaan idin arkaya in arrintaa kasii jeedaane, sunnada iyada inaad kasii jeedaan aydaan usoo jeedin oo necbaysateen baan idin arkayaa, maxaa iigu wacan. wallahi la armiyanna biha bayna aktaafikum, wallahi inaan garbihiina ku dhex tuuraya, yani anu idinka qarin maayo mas-uuliyadda idinkaan idinku wareejinaya, anu waa idin caddaynaya, waxba idinku hoosa u foorfoorsanayna. muttafaqun calayh. marka taasoo kale iyo marka waxaa weeyaan waa waajib weeyaan dariska gurigiisa markuu dhisanayo inuu gurigaaga soo gaarsiisa mooye si kale haddaanu ugu dhismaynin waa inaad u ogolaato. ruwiya khashabahu bilidaafati waljamci, qoryihiisa taas waa lagu wariyay alwaaxiisa yani. wa ruwiya khashabatan, qorigiisana taasna qori bitanwiini cala alifraad, mufradnimo. wa qowluhu ma li araakum canha mucridiin yani can hadihi sunna, canhaadaas yani sunna mafhuumaha hadalka laga gartay ayaa u noqonaysaa. maxaa iigu wacan waxaa idin arkaya inaad arrintan kasii jeedaan sunnadan taba aydaan usoo jeedine, wallahi adinku saa doontaan ka yeela, anu khalaas kitmaanulcilmi waan ka baxay buu dhahaya abu hurayra radia allahu canhu. wa anhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slm qaal man kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri falaa yu'di jaarah, qofkii alli iyo qiyaamo rumaysanu deriskiina isayaanu dhibin. waman kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu, qofkii alli iyo qiyaamo rumaysanu martidiisa ha maamuuso. waman kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskut, qofkii alli iyo qiyaamo rumaysanu khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso. muttafaqun calayh. marka saddexdaa arrimoodba wuxuu u horraysiiyey oo ku bilaabay mid walbaba qofkii alli iyo qiyaamo rumaysano, leanna sidaa macnaheedu waxaa weeyaan iimaanka alli iyo qiyaamo la rumaysto ayaa sidan keenaya. qofkii alli iyo qiyaamo rumaysano iimaankiisaasi wuxuu keenayaa inuu dariskiisa dhibka ka ceshado, leanna wuxuu ogyahay kolka inuu alle arrintantada waajibiyey oo qiyaama lasoo bixin doono oo lagula xisaabtami doonay. martiduna sidaas weeyaan, hadalkuna sidaas weeyaan, inuu hadalkiisa miisaamo oo muxuu ahay kii khayr lahun uu ku hadlo, wixii aan khayr lahaynna uu iska daayo. lan ugu yaraan waxaas hadduu khayr iyo shartoona aanu lahayn tadiicu lwaqti buu noqonayaa, waqti bilaash kaga tegay buu noqonayaa. qofka muslimkaana waqtigiisu qaali weeyaan. muttafaqun calayh. وعn abi shurayx alkhuzaaciyi radia allahu canhu, muxuu ahaa magaciisana waan soo marray quwaylid ibn camri inuu ahaa radia allahu canhu, ana nabiya sal ly slam qaal man kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri falyuxsin ilaa jaarihi. kanaa kii hore kasii xoog badan. kii hore wuxuu ahaa dariskiisa yaanu dhibin, marka hadduuna dhibin aanu dheefininna sidaa inuu ku baxsanayo miyaa macnaheedu oo dariska xaggiisu ka soo baxay? maya, waa inaanu dhibin laakiin haddana uu anfaco. hadduu waxtarkiisii ka ceshado dariska xaggiisa kama soo bixin. waman kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfah, qofkii alli iyo qiyaamo rumaysanu martidiisa ha maamuuso, martida iyo inta ay noqonaysa beri ay noqonaysana xadiid kaloo imaan doonta insha allahu faahfaahin doonta. waman kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskut, khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso. labada ayayna uga dhexayn, labada wuxuu uga dhexeeyaa waa inuu wax shar ah uu ku hadlay. rawahu muslim bihada lafdi wاlbukhaariyu bacdah. bukhaari marka isagoo mukhtasara buu wariyey, muslimna isagoo sidan todob dheer isaga wariyey. وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat qultu ya rasuula allah, waxaan ihi ya rasuula allah ina lii jaarayni, laba deris baan leeyahaye, failaa ayhimaa uhdii, koodeebaa wuxuu hadiyeeyaa, koodeebaa igu xaq weyn oo kolkaan rabo inuu hadiyeeyo aan isaga ka dhigaa. qaala ilaa aqrabihimaa minki baaban,
kooda kuu soo dhow xagga albaabka kugu soo dhow. rawahu albukhaari. marka haddaad laba deris leedahay oo kuu kala dhow, intay kuu kala dhow yihiin ayay kuugu xaq leeyihiin. taasuna marka waxay fasiraysaa xadiidkii aayaddii waljaari dilqurbaa in macnaya labadii macne ee loola jeeday midkood inuu yahay, midkood bay sii xoojinaysaa. dhawaashahana xaggeen laga fiirinaya? derbiga laga fiirin maaye albaabka laga fiirin. oo masalan haddii uu jiro laba guri oo midna derbigiisu kugu dhow yaho aada kugu dhow yahay laakiin albaabkiisu xagga usii jeedo, albaabkiisu kolkii lasoo wareego uu kaa fog yahay, midna derbigiisu kaa baxsan yahay laakiin albaabkiisu kugu soo jeedo, oo labadooda marka laysu fiiriyo midka derbigiisu kaa yar durugsan yahay xagga albaabka usoo dhow yahay, kaasaa kugu xaqle. oo dhawaanshaha marka xagga albaabka laga firinaya, xagga jidaarka laga firin maayo. rawahu albukhaariy. وعn cabdاللahi بn cmr radي allahu canهuma qala qala rasuulu الlahi slى الlه عlيه wali wsلم khayru الأصxaabi cinda allahi tacaalى khayruhum lisaaxibihi. dadka asxaabtaa saaxibada iyo rufaqada iyo ah ka ugu fiican alla agtiisa ugu fiicani waa ka saaxiibkiisa ugu fiican ugu waxtar badan. qofba qofku dariskiisa iyo saaxibadiisa iyo ugu dhaqaaleyn badan yahay, ugu jajaban yahay, ugu mucaamil fiican yahay, yuu allana ugaga dhow yahay. wa khayru اljiiraani cinda allahi tacaalى khayruhum lijaarihi. dariskana ka ugu fiican alla agtiisa waa ka dariskiisa ugu fiican ugu dhaqaale badan. rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan. sidaasuna ilaa kan waa xadiidku waa صaxiix. صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اjaamiع الصaغيir wa fi silsilaة اaxaadiiث الصaxiix. xadiidku marka صaxiix weeyaan. baabu biri اlwaalidayni wa silaة اlarxaam. baarinimada labada waalid loo baari noqdo iyo qaraabo xidhiidhinta. qaala allahu tacaala ugu jajaban yahay, ugu mucaamil fiican yahay, yuu allana ugaga dhow yahay. wa khayru اljiiraani cinda allahi tacaalى khayruhum lijaarihi. dariskana ka ugu fiican alla agtiisa waa ka dariskiisa ugu fiican ugu dhaqaale badan. rawahu tirmidiyu wa qaala xadiiثun xasan. sidaasuna ilaa kan waa xadiidku waa صaxiix. صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اjaamiع الصaغيir wa fi silsilaة اaxaadiiث الصaxiix. xadiidku marka صaxiix weeyaan. baabu biri اlwaalidayni wa silaة اlarxaam. baarinimada labada waalid loo baari noqdo iyo qaraabo xidhiidhinta. qaala allahu tacaala wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa. alla caabudo oo waxba ha ugu shariig yeelina, wax yarna ha ugu shariig yeelina. in shirki iyo asqar iyo ka akbara intaba ka fogaada. wa bilwaalidayni ixsaana. labadii waalidna ixsaan u sameeya. wa bidi lqurbaa kii qaraabanimada saaxiibkaana khayr wanaag u sameeya. walyataama wاlmasaakiin wاljaari di lqurbaa wاljaari ljunubi wasaaxibi biljanbi wabni sabiili wamaa malakat aymanukum mar dhowd waatanu soo maray. wa qaala tacaala wاtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi wاlarxaam. wاtaquu llaha alla ka baqa aladii tasaa'aluuna bihi isagaa isku baridaan eed dhahdaan allaan kugu bariyey ee waxaa ii yeelayaa is dhahdaan. wاlarxaama qaraabadana ka baqa inaad goysaan, yani qaraabadana inaad goysaan ka baqa, allana inaad casidaan ka baqa. labadaas alla isku xidhay marka say xaqa qaraabada ku u wen yahay, taqwadii alle iyo iska ilaalinta iyo qaraabo goynta. wa qaala tacaala wاladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal. mar dad uu soo ammaanaya alla subxaanahu wa tacaala fi suurati aracdi ayuu alla wuxuu ku leeyahay waaladiina iyo kuwii weeyaan yasiluuna xidhiidhinayay maa amara allahu bihi wixii alla uu faray an yusala in la xidhiidhiyo. dadka muxuu ahaa wixii alla in la xidhiidhiyo uu faray xidhiidhiya, dadkaas weeya dadka khayrkaas iyo wanaaggaas leh iyo ammaantaas leh. saasuu macnuu noqonaya. marka waxa alla in la xidhiidhiyo uu farayna maxaa ka mid a? qaraabadaa ka mid a. wa qaala tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana. wasaynaa waxaan u dardaaranay oon amarnay alinsaana ibna aadamka biwaalidayhi labadiisi waalid xusnan wanaag inuu u sameeyo. suurat alcankabuut 3 suuradood oo muxuu ahaayey cibaaradooda ay isu dhodhow yihiin, oo suurat alcankabuut iyo suuratu luqmaan iyo suuratu maxay ahayday alaxqaaf baa saddexdaaba si cibaarada isu dhodhow uu waalidka uga dardaarmay, oo weliba hooyada uu gaar uga sii dardaarmay oo dhibaataday ka soo martay uu alla subxaanahu wa tacala u tirtiriyay. wa qaala tacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah.
rabbigaa wuxuu xukumay yacni uu amray inaydaan isaga mooyaane wax kala caabudin wa bilwaalidayni ixsaana labadii waalidna ixsaan in loo sameeyo wa imaa yabluganna cindaka hadday agtaada ku gaadhaan alkibara da'weyni axaduhumaa midkood ow kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul lahumaa uffin uf ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin walaa tanharhumaa hana canaananin habarta qayladaba wax sidaas ha dhihin waqul lahumaa qawlan kariima hadal wanaagsan ku dheh aabba hooyo waxyaalahaas ku dheh waqfid lahumaa janaaxa dulli hoos ugu dhig garab dulli yani garab tawaaduc hoos ugu dhigo min araxmati oo naxariisa aad ugu naxariisa weeyaan waqul waxaana dhahdaa rabbi irxamhumaa rabbi ow u naxariiso kamaa rabbayaani siday iisoo koriyeen sagayran aniga oo yar kolkaan yaraasa iisoo koriyeen allo iyagana u naxariiso marka hadalkan u macaanee muxuuha wixii wasakdi iyo wixii ka imaanaya iyo waxyaalahaas iyo haddee dabcigoodu waa isbedelaya kolkaase u dulqaado u tawaaduc xusuuso dhibkay kaa soo mareen marka weliba u duce wa qaala tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayh waxaan kula dardaarmay insaanka labadiisii waalid baan kula dardaarmay xamalathu ummuhu hooyadii baa siday wahanan calaa wahanin dacfan calaa dacf tabaryari lagu daray iyadoo horta hore tabaryaridii bani aadamniya haweennimadii iyo bay markaa uurkii iyo nuujintiisii iyo marka iyadana ay tabaryari kale usii kordhisay wa fisaaluhu gurintiisuna fii caamayn 2 sana lagu guriyaa 2 sana la nuujiyaa waa qofkii ridaac kaamila inuu nuujiyo sida suuratu albaqara alla uu ku sheegay waalwaalidaatu yurducna awlaadahuna xawlayni kaamilayn liman araada an yutima radaaca an ishkur lii waliwaalidayka igu shukri labadeedii waalidna ku shukri hortee horena alla subxaanahu wa tacaala aaddii hore anlaa tacbudu ilaa iyahu wabilwaalidayn ixsaana buu waalidkii iyo cibaadadii rabbigi buu isku daray haddana wuxuu isku daray oo uu isku qabtay shukriga alle iyo shukrigii waalidiinta leanno muxuu alla subxaanahu wa tacaala waa kii na abuuray ee cadam naga soo bixiyey iyagana waa kuwii sababka u ahaa abuurkeenna ee alle uu soo mariyey iyaga xaggooda ina soo mariyey naga abuuray weeyaan وعn abi cabdiلرaحman cabdالlahi bni mascuudi radي allahu canhu qaal sa'altu الnabiya salى الlahu عalيه wali slm nabigaan waxaa su-aalay ayu lcamali axabu ilى اllah camalka keebuu alla ugu jecel yahay qaala salaatu calaa waqtiha salaada oo waqtigeeda ah waqtigeeda lagu tukado qultu uma ayun haddana keebaan dhahay qaala biru lwaalidayn labada waalid u baarin noqodkooda iyo haddana ku-xiga buu yidhi qultu uma ayun haddana kee kuxiga qaala aljihaadu fii sabiili اllah jihaad fii sabiili اllahi baa haddana ku-xiga saddexdaasu saa u kala ratibay xadiidkan kada waxaa muttafaqun calayhi wuxuuna ku iman doonaa 1,074 yuu mar labaad kusoo noqon doonaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيyه wasalam laa yajzi waladun waalida uma abaalgudo ilmo waalidkii uma abaalgudo xaqiisii ma oofin karo ilaa an yajidahu mamluukan inuu helo isagoo la addoonsanayo oo la leeyahay mooyaane fayashtariha uu iibsado fayuctiqahu uu xoreeyo mooyaane rawahu muslim taa keliya xaqiiseedu ku oofin karaa ilaa addoonnimadu waa dulliga ugu daran ee bani aadamka qabsada weeyaan marka geeri bay shabbahdaa cadam bay shabbahdaa waalidkuna waa kii cadamka inuu qofku ka soo baxo sababta uu isagu u ahaa kanna marka dulliga ugu xumaa inuu ka baxo buu sabab ugu noqday taas keliya wixii kaloo dhan hadduu u daro maalkiisa oo dhan hadduu siiyo hadduu maanta oo dhan dhabarka ku siiyo ma noqonayo xaqiisa ma oofinayo taa keliya xaqiisii ku oofin karaa وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه عليه وسلم قاaل من kاna يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه qofkii alliyo qiyaamo rumaysano deriska ha maamuuso deriskiisa وmaن kاna يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رaحمه qofkii alliyo maalinta dambe qiyaamaha rumaysano ha xidhiidhiyo qaraabadiisa وmaن kاna يؤمن بالله واليوم الآخر فليqل خيرا أو ليصمت khayr ha yidhaaho ama ha iska aamuso xadiid mar dhoweed aan soo maray yuu shabahaan laakiin halkan kada muxuu ahaa waxaa ku jira tii hore falyasil raximahudaas ayaa ku jira xadiidkuna waa muttafaq caleyh wuxuuna ku imaan doonaa 706 buu ku imaan doonaa وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إن allaha taعaalى khلqa الخلق alla subxaanaه وataعaalى khalqiga ayuu abuuray xataa idaa faraqa minhu markuu dhameeyey khalqigii uu abuuray qaamat iraximu qaraabanimadii istaagtay
faqaalat markaas waxay tidhi hada maqaamu alcaa'idi bika min alqatiica halkan aan taagnahay waa meesha uu istaago qof kaa magangelaya in la gooyo yani in lay gooyaan kaa magangelayaa bay ka dhigan tahay qaala markaasuu alla yidhi nacam haa waan ku magan gelinayaa amaa tardayna miyaadan ku raalli ahayn an asila man wasalaki wa aqtaca man qaطacaki inaan xidhiidhiyo qofka ku xidhiidhiyo qofkii ku gooyana aan gooyiyo saa miyaadan raalli ku ahayn qaalat balaa haabay tihi waan ku raalli ahay qaala markaasuu yidhi fadaliki laki kaasaad leedahay marka waxaad u leedahay alla marka wuxuu ku ballan qaaday qofkii gooyana inuu gooyo qofkii xidhiidhiyana u xidhiidhiyo xadiidkii dheeraayan hadda ka hor soo marray ee ku saabsanaa qiyaamahana waa kii aan ogayn soo marray in ammaanada iyo raximka labadoodaas la soo dirayo oo siraadka kolka la maraya labada dhinac ay kala joogsanayaan oo dadka ay qaqabsanayaan uma qaala rasul lah sal slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi isagoo arrintantada daliil ku sugaaya iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan bal aqriya fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacmaa absaarahum bal aayaddaas aqriya sidaa xukunkaas haddaa shakeeda kaga jiro fahal casaytum ma mudantihiin oo ma u dhowdihiin in tawallaytum haddaad madax noqotaan an tufsiduu fi lard inaad dhulka fasaadisaan oo fisqi iyo fujuur iyo balaayo ku fasaadisaan watuqaطicuu arxaamakum qaraabadiinana aada goysaan ulaa'ika kuwaasu kuwa sidaas yeela ee kolkay madax noqdaan dhulka fasaadiya oo muxuu ahayey eex iyo laaluush iyo khamriyo cabnimo iyo dhilanimo iyo balaayo iyo waxaas iyo ku kaca oo qaraabadoodana gooya ulaa'ika aladiina lacanahum allah kuwaas waa kuwa alla nacladay fa asamahum uu dhaga tiray wa acmaa absaarahum maqalkoodina uu zuuliyey oo la tiray weeyaan muttafaqun calayhi walilbukhaariyi faqaala allahu tacaala markaasuu wuxuu yidhi man wasalaki wasaltuhu waman qaطacaki qaطactuhu tii muxuu ahay intii hore tii riwaayadii hore ka tiri miyaadan raalli ku ahayn waytan goor dambana uu yidhi fadaliki laki ayuu riwaayadan waxay leedahay alle wuxuu yidhi qofkii ku xidhiiriyana waa xidhiirinayaa qofkii ku gooyana waa goynaya bismi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilah rab alamin wsalaatu wasalaam ala rasuuli illah wala alihi wasaxbi ajmaciin ama bacd وعنه رضي الله عنه قال عنه يعني عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه xadيثkii hore wariyey رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلى رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسuuل اللhi صلى اه عليه وسلم nin baa u yimid نبga صلى اه عليه وسلم bu iبن مسعوud yihi فqاla ya رsuuل الله man أxق الناasi بxusن صحاaبتي waa kee dadka ka ugu mudnaan badan saaxiibtinimadayda yani iyo la dhaqankayga wanaagiisa inaan si fiican ula dhaqmo oo si fiican u dhaqaaleeyo qaala ummuk waa hooyada qaala uma man haddana waa kee qaala ummuk hooyada qaala uma man haddana mar saddexaad bul waa kuma haddana oo qaala ummuka mar saddexaadkeeda qaala markaasuu haddana wuxuu yidhi ninkii mar afraad uma man haddana waa kee qaala abuk waa aabbaha muttafaqun caleyh marka halkaasaa waxaa laga qaatay hooyadu inay leedahay halaaثatu arbaaci lbir kolkii baarinimada iyo wanaajinta waalidka la wanaajiyo 4 meelood loo dhigo inay hooyadu ku sidato oo qayb libaaxay ka qaadanayso oo 3 meelood iyadu leedahay aabahana 1 meel uu leeyahay muttafaqun calayh wafii riwaayatin yaa rasuula allahi man axaqu bixusni الصuxba saaxiibtinimo yani la jir yaa ugu xaqnimo badan qaala umuka uma umuka uma umuka uma abaak uma abaak uma adnaaka adnaak ka kuugu dhow haddana kuugu dhow kolka aaba iyo hooyada markaa soo dhaaf dadku say kugu kala dhow yihiin ilmaha walaalaha adeer wالصaxaabatu bimacna الصuxba wa qowluhu uma abaaka haakada huwa mansuuban xagga icraabta uga hadlaayaay isagoo kor dhaban oo abaaka la yidhaaho ayaa sidaa lagu wariyey oo alifta lagu nasbiyey bificlin maxduufin ay uma bara abaaka u baari noqo abaha u baari noqo marka ficilkaasaa loo qadaraya mafcuul bihi sidaa u noqonaya wa fii riwaayatin uma abuuka wa hada waadix kolkaas muxuu ahay isagu waxba kale uma baahno kuwii hore marka ku cadfan yahayo uma abuuka haddana aabbaha weeyaan ka kugu aqleh buu marka noqonaya
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغب أنف من إلى آخره يعني ha boodhoobo sanka haddana ha boodhoobo sanka haddana ha boodhoobo sanka qofka man adraka qofka soo gaara abaweyhi labadiisi aabbo cinda alkibar labadiisi waalid yani cinda alkibari daaweynada agteeda kusoo gaara oy ku agweynaadaan aw kilayhim axadahumaa midkood aw kilayhimaa ama midkood ama labadooda uma lam yadkul iljanna haddana janno aan gelino rawahu muslim janno marka ma isagaa qofku isu haya suu u habaarayaa nebigu sala allau alay wasalam qofkii aabbihii iyo hooyadii intay daaweynaadaan aan janno gelin marka yani waxaa weeye sababkii ay lagu geli lahaa weeyaan aabbihii hooyadu marka hadduu janno geli waayo waa inuu sababka isagu fudaydsaday oonu ku isticmaalin oo baarinimadii aabbihii hooyadii uu ka tegey oo sidaa jannadii uu kaga qaday weeyaan marka allaha dulleeya waa kaasu raqima anfu macnihi waxaa weye iltasaqa biraqaam raqaamkuna waa ciidda sanka ciidda hala galo oo had dullooba uu ka dhigan yahay rawahu muslim وعنه رضي الله عنه أن رجuلا qاla ya rasuul الlah ina lii qaraabatan asiluhum wayaqطacuunii anugu waxaan leeyahay qaraabo oo aan xiriiriyo oo igooya wauxsinu ilayhim wayusii'uuna ilaya aan wanaag u sameeyo oo iyaguna i xumeeya waaxlumu canhum aan ka u dulqaato oo wayajhaluuna calaya igu adab darooda faqaala markaasuu yidhi lain kunta kamaa qulta haddii aad tahay sida aad sheegtay tacliiqaasuu ku xidhay liannu ninkan isagaa u warramay kol hadduu isagu warramayana isagaa wax uu sheeganayo weeyaan marka sidaas daraaddeed buu rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam arrinta ma aanu jasminin oo saas iyo saataa aad kala tihiin ma aanu dhihine haddii arrintu sidaa aad igu sheegtay ay tahay ood run sheegayso fakaannamaa tusifuhum lmalla waxaad la mid tahay sidii adigu oo hambinaya afka ugu guraaya almalla rumad muxuaha dambaska kulul yaa la yidhaahaa rumadka ama raranka la yidhaaho yaa malli la yidhaahaa walaa yazaalu macaka min allahi dahiirun calayhim kama zuulayo inuu kula jiro xag alla kaaga jiro ku caawiya maa dumta calaa dalika intaad sidaa tahayba xag allah taageera ka haysataayoo allah kaa gacan siinaya in alla intaad sidaa aad tahayba iyadaguna ay ku xumaynayaan adna aad wanaajinayso rawahu muslim waxaanu kusoo noqon doonaa raqam 648 watusifuhum bidami الtaa'i wa kasri الsiin اlmuhmala watashdiid اlfaa tusifu wاlmallu bifatxi اlmiim watashdiid اllaam wahuwa الramaad اlxaar waa dambaska kulul marka ay kaأnamaa tuطcimuhum الramaad alxaar waxaad la mid tahay sidii adigu afka ugu guraayo oo cunsiinaya dambaska kulul yani ruumadka wa huwa tashbiihun limaa yalxaquhum min alإثm dembiga gaadhaya ee dhibaatada aakhare ee soo gaadhaysa ayuu wuxuu ku shabahayaa bima yalxaqu aakila ramaadi alxaari min alalam qof ruumad cunaya dambas kulul cunaya wixii soo gaadhi lahaa ee xanuunka ah ayuu dembigaa soo gaadhaya ku masilaya walaa shay'a calaa hada almuxsini ilayhim isaga qofkaas isaga wanaagga u sameeyey wax dembihi ma haysto lakin yanaaluhum ismun cadiimun bitaqsiirihim fii xaqihi iyaguse dembi weyna uu gaaraya gabadfalka ay xaqiisa ku gabadfaleen wa idkhaalihim aladaa calayhi dhibka ay u soo geliyeen wallahu aclam wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ه alay slam qaal man axaba an yubsata lahu fii risqih qofka jecel in loo waasiciyo risqigiisa wayunsa'a lahu loo dibdhigo fii aharihi cumrigiisa dib loogu dhigo cumriga alla u dheereeyo falyasir raximahu ha dheereeyo ha xidhiiriyo qaraabadiisa muttafaqun caleyh cumri dheerayntu waa wax caalamka oo dhan uu jecel yahay oo ay ku dadaalaan kuwa dhakhtarada iyo waxyaalaha teknolojiyada iyo cilmiga waxaasu ku horumaray laakiin ayna heli karaynin xataa shayquuqada oday gabowga inay la dagaalamaan iyo waxaasi bay dawooyin ay soo saaraan isku dayaan waxaasoo dhanna ma ayna karin laakiin maxayna aqoonin dawadii xaqiiqiga ahaydee yayna aqoonin oo waa mid sharciga alla uu sheegay
huwa qaraabo xidhiidhinta iyo deris wanaagga weeyaan. risqigana waa lagu waasiciyaa, muxuu ahaye guryuhu waa ku camirmaan, dadku waa isku jeclaadaa, waana cumrigana waa loogu dheeraaya. muttafaqun calayh. wa macnaa yunsaa lahu fii aharihi ay yu'ahara lahu fii ajalihi wa cumrihi, in dib in loogu dhigo ajashiisa iyo cumrigiisa, saasuu macnuhu noqonaya. wa canhu radia allahu canhu qaal kaana abu طalxata radia allahu canhu akthara alansaari bilmadinati maalan min nakl. abu طalxa wuxuu akaa ansaarta ugu maal badan madiine oo xagga timirta. wa kaana axabu maalihi ilayhi bayruxa, beerta bayruxa lahaydana ugu jeclaa. wa kaanat mustaqbilat almasjid, masjidkay kasoo horjeeday. wa kaana rasuulu llahi sal lla alay slam yadkuluha wayashrabu min ma'in fiiha طayib, wuuna geli jiray nebigu sal lla alay slam oo biyo macaana ku yaalla buu cabi jiray. falama naزlat hadihi اlaaya, markay aayadanu soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun, iyo qaama abu طalxata ilaa rasuuli llahi sal slam. abu طalxa nabiga isu taagay faqaala ya rasuula allah in allaha tabaaraka watacaala yaquul, alla subxaana wa tacala wuxuu dhahaya, yani waxaan mid kale on soo marray, riwaayatan oo soo marray waxay in allaha tacaala anzala calayka, sidaasay ahayd. waana isla macno marka alfaada waxoogaa yar kala duwan bixasabi tacadud الriwaayaat. lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuuna ba alla dhahaya. wa ina axaba maali ilaya bayruxa, xoolahaygana bayruxa baan ugu jeclahay. waxaad shaygaad ugu jeceshiin bixiya hataa lama dhihine, kaad jeceshiin ilaa aad wax ka bixisaan baa layihi. markaasuu dadaal iyo ixtiyaad uu samaynaya, shaygu u jeclaa buu bixiyey. wa inaha sadaqaة lilahi tacala arjuu biraha wadukraha cinda allahi tacaala, fadachaa ya rasuula allahi xayثu araaka allah, deji meesha alla u kutusi ya rasuula allah. faqala rasul lah sal slam baq daka maalu raabix, daka maalu raabix, kan waa maal ribxi, kan waa maal faa'iday. qad samictu ma qulta, waxaad dhahday waan maqlay. wa inii araa an tajcalaha fi laqrabiin, inaad qaraabadaas dadka aadka ugu dhadhow aada yeesho ood u qaybiso ayaan u arkayaa. faqaala abu طalxata radia allahu canhu afcalu ya rasuula allah. faqasama abu طalxata bayna aqaaribihi wa bani camihi, muttafaqun calayh. waqad sabaqa bayaanu alfaadihi fi baab اlinfaaq mima yuxibu, baabkaasuna kusoo hormaray alfaadiisa dabdigeeda iyo macaanaheeda sheegitaankiisa. lambarkiisuna wuxuu ahaa 297. وعn cabdاللahi بn cmr بn الcاaص رadي الله عanهuma qala aqbla rajulu ilى nabiy الlahi slى الlه عalيه وalي وsلم, nin baa rasuulka all slى الlه عalيه وalي وsلم u yimid oo xaggiisa usoo socday. faqaala markaasu wuxu ubaayicuka calى الهiجرaةi والجihaad abtagi الأجra min allah, waxaan kugula mubaayacoonayaa inaan muhaajir ahaado oon dalkayga aana dib ugu noqonin, oon jihaadka kaala qayb galo anigoo ajri alla subxaanaه wa tacala agtiisa ka dalbaaya. faqaala markaasu wuxuu yihi rasuulka sal ly slam fahal laka min waalidayka axadun xay, ma ku leedahay labadaadii waalid mid nool ma ku jiraa? qaala nacam bal hum ahaa, oo labadiiba waa nool yihiin. qaala fatabtagi اlأjra min allahi tacaala, ma ka doonaysaa alle subxaanaه wa tacaala ajr? qaala nacam. qaala farjic ilaa waalidayka faaxsin suxbatahumaa, u noqo labadaadii waalid oo hagaaji la dhaqankooda, ka dhaqanka aad la dhaqmayso hagaaji ayuu ku yidhi. marka muttafaqun calayhi wa hada lafdu muslim, xadiidku waa muttafaq calayhi, lafdigaasna waa muslim lafdigiisa. wa fii riwaayatin lahumaa jaءa rajulu faاstaadanahu fi اljihaad, nin baa u yimid nebiga sal lla alay slam markaasuu uga idan dalbay jihaadka inuu ka qayb galo. faqaala markaasu wuxu uhi axayun waalidaaka, ma nool yihiin labadii ku dhalay? qaala nacam, hayo waa nool yihiin. qaala fa fiihimaa fajaahid, iyaga ku jihaad, jihaadku iyaguu ku jiraaye ku jihaad ayuu. wa canhu radi allahu canhu an nabiy an cabdillahi bni camr bni caas radi allahu canhuma can nabiy sal l slm qaal laysa alwaasilu bilmukaafi walakina alwaasila aladi ida qaطacat raximuhu wasalaha rawahu lbukhaariy. laysa alwaasilu qaraabo xiriiriyuhu ma aha bilmukaafi'i midka abaalguda, midka abaalguda oo markay qaraabadiisu xiriiriso isna xiriiriya kaa ma aha qaraabo xiriiriya qumanaa ee la rabayo. qof waliba qofkii ixsaan u sameeya waa ixsaan u falaayo waa xiriiriyaa. walaakina alwaasila qofka qaraabo xiriiriyaha ee si fiican qaraabadii u xiriiriyayu alladii kii weeyaan idaa qatacat raximuhu markay qaraabadiisu goyso wasalaha isagu xiriiriya, kaas weeye qofka ragga ah
ee qaraabo xidhiiriyaha quman ah kolka iyagu ku gooyaan inaad xidhiiriso kuwii hadda ka hor aan soo marray ninkii ka dacwoon jiray qaraabadiisa ee dhihi jiray anu qaraabadayda waan xidhiiriya iyaguna way xumeeyaan kaas siduu ku yidhi nebigu sala alla alay slam oo kale kaasoo kalea la rabaa weliba yani xadiid kalena wuxuu ahaa waxaa sadaqa ugu fiican midda aad ku sadaqaysato qof qaraabadaada oo caloolxumo kuu qaba marka qaraabo xidhiirinta taasaa ugu fiican rawahu albukhaariy waqaطcat bifatxi اlqaafi wata qaطcat la yidhaaho bilbinaai lilmafcuul yani wa raximuhu marfuuc isaguna faacilkii weeyaano yani idaa qaطacathu raximuhu yani qaraabadiisu markay goyso ka xidhiiriya saasuu macnuhu noqonaya وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat qala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم alraximu mucallaqaة bاlcarsh qaraabanimadu waxay suran tahay oo ka soo lalmataa carshiga allah taquulu iyadoo dhahaysa man waslanii wasalahu اllah wman qaطacanii qaطacahu اllah mutafaq عalayh qofkii xidhiiriya alla ha xidhiiriyo qofkii gooyana alla ha gooyoba had iyo goor sidaas carshiga iyada kasoo lalaado haysata sidaas ku alla baryaysa allana marka waa ka aqbalayaayo waa kaan soo marraba inuu hore ugu ballan qaaday markii uu khalqiga abuurayba uu muxuu ahay intay alla subxaana wa tacaala magan gashay uu allana magan geliyo wuxuu ku magan geliyana ay ahayd inuu ugu ballan qaaday qofka xidhiiriyana inuu xidhiirinayo qofkii gooyana inuu goynayo xadiidkii horena waa kaynu ku soo marray inaanu qof qaraabada goyn jirayu siraadka aanu ka gudbaynin oo qaraabadii ammaanada labadaas qofkii xumayn jiray ay jidka isu taagayaan marka qaraabada waa in aad iyo aad loo ilaaliyo qaraabo xidhiirintu faa'iide adduunkaana waa leedahay iyo to aakhiraba faa'iidadii adduunkeeda taa kusoo marrayba ahayd in risqina loo waasicinayo cumrigana loo dheeraynayo qofkii qaraabada xidhiiriya muttafaqun calayh wacan umi lmu'miniina maymuna binti alxaarisi radia allahu canha annaha actaqad waliidatan waxay xoraysay jaariyad waliida macnaa jaariyad addoon u ahayd ayay xoraysay walam tasta'din الnabiya salى الlahu عalيyه wali wslam nebigana ma ayna uga idin dalbin mayna uga idan qaadanin marka taas macnaheedu waxaa weeyaan naagta ninka lihi siday axaadiid saxiixa caddaynayso xoolaheeda markay rabta inay ka bixiso waa inay ninkeeda weydiiso ninkeeda ka idan qaadato haddii kale marka inuu ka celiyaa buu heli karaa marka nebigu salى الlahu عalيه waslam waa isaga saamaxay goortamay markaa u sheegtay kolkay samaysay dabadeed ba u sheegtay salى الlahu عalيه wali wslam falama kaana ywmuha aladii yaduuru calayha fiihi markuu yimid maalinteedii uu kusoo wareegi jiray ee dawlada kolkuu samaynayo habeenkii kusoo hagaagi jiray iyada markuu u yimid ee qaalad waxay tidhi ashcarta yaa rasuula allah ma ogaatay yaa rasuula allah anii actaqtu waliidatii jaariyadaydii inaan xoreeyey qaala markaasuu yidhi awa facalti oo miyaad yeeshay qaalad nacam haabay tidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa inaki low acطaytiha adigu haddii aad siin lahayd akhwaalaki reer abtigaa khayrun kaana acdama liajrika ajrigaa saas u weynaan lahayd muttafaqun calayh marka si fiican baad yeeshay oo qof aad xoraysay waa shay wanaagsan oo ajri la weeyaan oo qofkaasoo kale xubin walbaba xubnihiisa xubin lagaga xoreeya naarta lagaga xoreeya laakiin waxaa kasii ajri badnaan lahayd adiga oo reer abtigaa intaad siiso xariga u raacraado oo khidmada ugu filaato taasaa kaaga sii ajri badnaan lahayd xadiidkuna muttafaq caleyh weeyaan وعn أسmاء بنت أbي بكر الصديq رضي الله عنهma qاaلت qadimat calaya أmii hooyaday baa ii timid wahiya mushrikatun iyadoo kaafirad ah fii cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalayhi وalih wasalam ballantii nebiga sal ly slm waqtigii mucaahadada gaalada uu la galay ee lagu jiray mucaahadadii xudaybiya lagu jiray ee nabadgelyada la kala qortay oo dadku ay isu safri kareen iyay ii timid iyada oo marka kolkaan waxna ka doonaysa waxoogaa hadiye iyana u wada faاstaftaytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi وalih wasalam rasuulka alla ayaan fityo weydiiyey waxay shakiday inay hooyadeed laba arrimood baa islaamtan ku kulantayoo waalidnimo iyo kaafirnimo marka gaalada in la goynayana waa ogeyd asmaa radia allahu canha in waalidka uu xaq leeya oo la xidhiiriyana waa ogeyd marka labadantada arrimood midoodii xoog badan ma gaalnimada la rajaxayaayo waalidnimada gaalnimada ka xoog badan oo hooyada ma soo dhaweynayo mise waa cagsi oo gaal baa iska ahatay kol hadday waalid leedahay xaqeedii waalid hadday tahay xaqeedii waa leedahay taasay garan weyday markaasay weydiisay rasuulka sal lla alay slam faqultu waxaan ihi qadimat calaya ummii hooyaday baa ii timid wahiya raagibatun iyada oo wax rabta iyadoo wax iga rabta xidhiirin rabta afa asilu ummii ma xidhiiriyaa hooyaday
qaala markaasu wuxuu yidhi nacam silii ummaki haaye hooyadaa xidhiidhi muttafaqun calayhi. taasuna waa taa ay ku soo degtay aayaddii arrintaa ka hadlaysay ee alla subxaanahu wa tacaala uu dhahayey ku jirtay suuratu lmumtaxana ku jirta ee gaalada laba u kala qaadaysay ee kusoo degtay weeyaan. laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijukum min diyaarikum iyo aayadda kale ka dambayse inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini waakhrajuukum min diyaarikum wadaharuu calaa ikhraajikum. labadaas aayadood baa marka qisadanteeda kusoo degay muttafaqun calayhi weeyaan. qowluhaa raagiba ay taamicatun cindii tas'alunii shay-an iyada oo wax iga rabta oo wax weydiisanaysa. qiila waxaa la yidhi kaanat ummaha min annasr hooyanimadaasu hooyadii dhashay bay ahaydna waa la yidhi wa qiila min alradaaca nuujin bay hooyo u ahaydna waa la yidhi wa saxiixu lawal kii horaa saxiixu inay hooyadeed ahayd. wa can zaynab athaqafiya imra'ati cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu wa canha qaalat qaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi tasadaqna yaa macshara annisaa jamaacadiinna haweenka oo wax sadaqaysta walow min xuliyikunna dahabkiinaba ha ahaadee. xuli waxaa la yidhaahaa waxa haweenku ay isku qurxiyaane xidhaan baa la yidhaahaa walow waxyaalahaad xidhantiinba aad wax ka sadaqaysateene wuxuun sadaqaystaa. qaalat waxay tihi zaynab radia allahu canha arrimahaas oo kalena wuxuu fari jiray nebigu sala lla alay slam kolkay ciidda ay tahay uu markuu ragga u khudbeeyo yuu intuu ragga soo dhaafo oo haweenka suufkooda soo horjoogsado yuu gaar iyaga ula hadli jiray oo sadaqada u fari jiray. qaalat markaasay waxay tihi farajactu ilaa cabdillaahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud oo ninkeedii baan kusoo noqday faqultu markaasaan waxaan ku idhi innaka rajulun khafiifu daati lyad yani faqiir adigu waxaa tahay nin oo waxa gacantiisa ku jira uu fudud yani nin faqiiraa tahay. wa ina rasuula allahi sala allahu alayh wali slam amaranaa bisadaqa rasuulka allana wuxuuna faray sadaquuna faray annaga haweenka ah faatihi u tag fas'alhu warayso in adiga iyo carruurtaada iyo inaan wax idinku sadaqaysto agoon aan koriye iyo inay ii bannaan tahay iyo in kala weydii fain kaana dalika yujziu canii hadduu kaasu iga gudayo sadaqa idinku noqonayo waan idin siinaya wailaa saraftuhaa ilaa gayrikum haddii kalese dad kale aan u leexinaya dad kale aan siinaya. faqaala cabdullaahi radi allahu canhu markaasu cabdullaahi wuxuu yidhi bali tiihi anti may adigu u tag. fainطalaqtu waan baxay faida imra'atu min alansaari bibaabi rasuuli llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam waxaan la kulmay haweeney ansaareed oo albaabkii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam taagan xaajatii xaajatuhaa danteedu ay dantayda tahay isku maqsuud aan nahay arrintaan u socday oo kale iyana u socota. wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam qad ulqiyat calayhi almahaaba rasuulka allana wuxuu ahaa mid haybad alla saaray yuu ahaa. fakharaja calayna bilaalun radia allahu canhu bilaal baa noo soo baxay faqulnaa lahu waxaan ku nidhi iiti rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla u tago faakbirhu uga waran ana imra'atayni bilbaab laba haweeney inay albaabka joogaan tas'alaanika oo ku weydiinaya atujzi'u ma ka gudaysaa asadaqatu canhumaa sadaqadii aad fartay ma ka gudaysaa sadaqad oo ay ku sadaqaystaan calaa aswaajihimaa raggooda iyo wa calaa aytaamin fii xujuurihimaa agoonno dhabtooda ku jira yani agoonno ay koriyaan oo kuwa ay dhaleen ama la dhashay inay siiyaan sadaqadii aad sheegaysay ma ka gudaysaa. waxa weeye agoommada iyada ay korinaysayna waxay ahayd agoommo walaasheed ay dhashay bay ahayd siduu ibnu maaja uu sheegay muxuu ahay isnaad saxiixa uu ku sheegay. markaas ta kalena sidoo kale iyadana danteeda ahayd walaa tukbirhum man naxnu ana uga warramin dadka anay waa hebleeyaha dhehine laba haweena dheh waxay sidaa u leeyihiin uga warraminna waatay ka horteeda kasii afiifatay oo haybad rasuulka alla sala alla alay slam ay ka haybaysanayaan ayay sidaa hataa magacooda u qarinayaan. qaala fadakla bilaalu calىa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalih wasalam bilaal baa u galay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam fasa'alahu wuu weydiiyey arrinkii isaga ahaa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka allah wuxuu yidhi man humaa waa kuwee labada haweenkihi. bilaal hadda marka waxaa qabsaday laba arrimood baa la soo gudboonaatay haweenkii hore waxay yidhaaheen hana sheegin rasuulkuna sal ly slm wuxuu yidhi waa kuma waa weydiiyey marka rasuulka xaqiisa ka rajaxan xaqoodii oo waa sheegay marka bilaal hortii hore ma aanu sheegin laakiin kolkuu weydiiyey buu u sheegay. qaala markaasuu yihi imra'atu min alansaari wa zaynab
waa haweeney ansaareed iyo zaynab faqaala rasul lah sal ly slm ayu zayaanibihiya zaynabyaalka waa midoodee qaala markaasuu yihi imra'atu cabdillahi waa haweeneydii cabdullahi faqaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi lahumaa ajraani laba ajar bay leeyihiin ajru lqaraaba wa ajru sadaqa ajrigii qaraaba xidhiidhinta iyo ajrigii sadaqaday leeyihiin muttafaqun calayhi marka qaraabada waxa la siiya ayaa ugu ajri badan waa kan hadda ka horna soo maray uma adnaaka inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhahay ninkii weydiiyey yaa dadka ugu habboon qofkaan wax siiyo xadiidkii kalena waa kii ahaa ibda' biman tacuul uma dadka masruufiisa ku bilow haddana marka dadka kuu xiga haddana kugu sii dhow وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل ku saabsanaa in yaroo ka midana aan soo maray isagoo dhan aanu wada sheegayninba yo wuxuu yidhi أna heraql qaala لأbi سفyaan heraql abu سufyaan ku yidhi famaa yأmurukum bihi yani nebi sal sl muxuu idin faraa qaala markaasu qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu dhahaa اعbud الlaha waxdahu walaa tushrikuu bihi shayئa alla oo kelidiya caabudu oo waxba ugu shariig yeelina watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum xaabayaalkiin dhihi jireen iska dhaafa oo shirkiga iyo waxyaalaha ah waya'murunaa bالsalaa wالsidqi wاlcafaafi wالsila wsila baa hadda halkankada ku saabsan muttafaqun caleyh xadiidka intantadana hadda ka hor baan soo maray raqam 56 ayaan ku soo maray isagoo usoo deliishanaya sidqiga runta usoo deliishanaya haddana halkan uu kusoo celiyey oo silaturaximka usoo deliishanaya xadiidkuna xadiid dheer buu ahaayo qiso dheer lahoo macaani fara badan iyo axkaam badan ay ku jirto وعn أbي dri رضي الله عnه qال qاla رasuل الlahi صلى الله عليه وسلم إنكم satftaxuuna أرضا يudkaru fiiha الqiraaط idinku waxaad qabsan doontaan dhul oo qiraad lagu sheega yani qiraadka ay ku isticmaalaan qiraadkuna marka wax lagu miisaamo weeyaan dhul sidaas ah ayaad mxuaha qabsan doontaan dhulkaasuna masr weeyaan wa fii riwaayatin faidaa fastawsuu biahlihaa khayran ahalkeeda khayr usula dardaarma wa fii riwaayatin sataftaxuuna misr masr baad qabsan doontaan wa hiya ardun yusamaa fiiha alqiraad waa dhul oo qiraadka lagu isticmaalo oo qiraadka lagu sheego fastawsuu biahlihaa khayran dadkeeda khayr isugula dardaarma yani qaarkii qaar kale ha kula dardaarmo mise dardaarankayga qaata fa ina lahum dimmatan cahdi bay leeyihiin waraximan iyo qaraabay leeyihiine wa fii riwaayatin riwaaya kaloo saddexaadna waxay ahayd faida اftataxtumuuha marka aad qabsataan faaxsinuu ilaa ahlihaa dadkeeda wanaag u sameeya oo dhaqaaleeya fa ina lahum dimmatan waraxima waxay leeyihiin axdi iyo qaraabanimay leeyihiin aw qaala mise wuxuu yidhi dimmatan wasihraa waxay leeyihiin axdi iyo xididnimay leeyihiin seedinimo rawaahu muslim qaala alculamaa culimadina waxay yidhaaheen alraximu alatii lahum qaraabada ay leeyihiin waxay ahayd kownu haajara ummi ismaaciil minhum haajartii ummu ismaaciil ahayd oo ismaaciilna uu dhalay carabta cadnaaniyiinta ahee qurayshina ay ka mid tahay rasuulka sal ly slm uu ka mid yahay uu dhalay hooyadii ayaa reer masar ahayd marka waa qaraabanimo fog weeyaan wasihru xididnimada ay riwaayadan kale sheegtayna kownu maariyata ummi ibraahim ibni rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam minhum maariyadii muxuu ahay wiilkii ibraahim ee u dhashay nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa reer masar ahayd marka rasuulku sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ummadiisa kula dardaarmayaa dadkaas reer masar ah buu qaraabadaas iyo ugula dardaarmaya daraaddeed marka qaraabadaasuna qaraabad fog bay ahayd marka waxaa mu'arikhiintu ay sheegeen markay saxaabadii ridwaan ullahi calayhim masr ay qabsadeen ayay u sheegeen odayaashoodii u sheegeenoo waxay yidhaheen rasuulka iyaga sala allahu alayh waali wasalam yaa nagala kiin dardaarmay oo waxaan rabnaa inaan idin xiriirina marka idinkuna ogaada arrintaas ogaada oo muxuu ahay waxba rabshiya waxba isku kicininayaana dhibaata idin gaadhina markaasay la yaabeen markaasay waxay taasi waa qaraabo oo nebiyaalka iyo dadka nebiyaalka
jidkoodii raacin mooyaane dad kale aan xidhiidhinayn. ibraahim waxaan ujeeda nabigu sal ly slam ismaaciil laga yaabo 30 awow iyo ka badan inuu ka tirsado, maca dalika qaraabada intaa jirta ayuu xidhiirinayaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo ummadiisina xidhiiriya u leeyahay. marka qaraaba in kastaba ha fogaate waa in la xidhiiriyaa. wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal lama naزlat hadihi اlaaya markay aayaddanteedu soo degtay ahayd waandir cashiirataka alaqrabiin udig qaraabadaada dhow cashiiradaada dhow udig markay aayaddaasu soo degtay mudaca rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla u yeedh u dhawaaqay qurayshan faاjtamacuu way soo urureen facama wakhasa caamna waa ka dhigay khaasna waa yani gaar ahaanna qabiila oo hoosena waa ugu dhawaaqay guud ahaanna waa ugu dhawaaqay. wa qaala wuxuuna yidhi yaa banii cabdishams wa reer cabdishamsiyow yaa banii kacb bni lu'ay anqiduu anfasakum min annaar. way kala sarreeyaan marka labadoodaasuna banu cabdishamsi waa hooseeyaan, cabdishamsi waa in cabdimanaaf, marka kacb bnu lu'ayna waa sarreeya. war naftiina naar ka badbaadsada. yaa banii murata bni kacb banii mura ibnu kacb ow anqiduu anfusakum min annaar. yaa banii cabdimanaaf hoos buu marka haddana usoo degay reer cabdimanaafow anqiduu anfusakum min annaar. yaa banii haashim way kasii hooseeyaan marka haashim wayna cabdimanaaf anqiduu anfusakum min annaar. yaa banii cabdilmuطalib bani haashim bay iyaguna kasii hooseeyaan anqiduu anfusakum min annaar. yaa faatima gaar ahaan buu marka qof buu haddana ugu dhawaaqaya qoys qoys iyo qabiil qabiil iyo markuu intaba u dhawaaqay anqidii nafsaki min annaar, naftaadan naar ka badbaadi. fa innii laa amliku lakum min allahi shay-an anuu alla xaggiisa waxba idinkama hantiyi kareen hayra ana lakum raximan laakiin qaraabanima aad leedihiin saabulluhaa aan ku qoynayo bibalaalihaa ama bibilaalihaa qoyaankeedii aan ku qoynayo biyaheedii aan ku qoynayo yani qaraabanimo aadan xidhiirinayo yaad leedihiin oo waa idin xidhiirinayaa laakiin alla waxba idinkama tari karo muxuu ahaye. taasuna marka ma anfinayso inuu shafaaco leeyahay nebigu sala allau alay waslam. shafaaco waa leeyahay oo shafaacadiisu mid caam iyo mid khaasaba waa leedahay oo shafaacadiisa waxaaba ka mid ahaa in gaalada qaarkeed intuu uu shafaaco qaaday sida abu aalib oo kale loogaga aqbalay in cadaabkii laga fudaydiyo. labadii nin ee qabriga lagu cadaabayeyna in iyagana intuu u shafaaco qaaday in muddo ah cadaabka in laga fudaydiyo isagana loogaga aqbalay. marka laakiin shafaacadu waa shay wax uu shaygu isagu qofku hanti iyo awood u leeyahayna waa shay wax qof aad ku leedahay xurmo aad ku leedahay iyo weji aad ku leedahay kolkaad ka qabsato uu ku siinayo iyo waxaad adigu leedahay waa kala laba. marka waxba idinkama hantiyo kolkuu leeyahay wax awood oon leeyahay anigu ma jiro, laakiin rabbigay subxaanahu wa tacaala shafaacadiisa waa aqbalayaayo wuu shafaaco qaadaya rasuulku sala allahu alayh waali wasalam. laakiin hadday sidaa iyo gaalnimada ku dhintaan shafaacana ma aanu shafaaco qaadeen. qowluhu sala allahu alayhi waalihi wasalama bibalaaliha bifatxi ilbaa'i athaaniya wa kasriha balaaliha iyo bilaaliha labaduba. waalbilaalu lmaa biyaha qoyaanka ayaa bilaal la yidhaahaa. wa macna alxadiid saasiluhaa waan xidhiirin doonaa baa laga wadaa, waan qoyn doonaayo biyaheedi baan ku qoyn doonaadaasu waan xidhiirin doonaa baa laga wadaa. shabaha qatiicataha bilxaraara wuxuu ku shabahay nebigu sala allahu alay wasalam goynta qaraabada kulayl iyo dabbaxaya tudfaw oo lagu baktiinayo bilmaa'i biyo. wa haadihi tubradu bisila iyadana qaraabanimadana waxaa lagu qooyaa iyadana lagu qaboojiyaa xidhiirinta. wa can abi cabdillaah camr bn alcaasi radia allahu canhuma waa cabdullahi iyo aabihi canhumaa kau laleeyahy lakin alcaas isagu kuma jiro. alcaas ibni waa'il asahmi isagu mushrik buu ahaa lacnat llahi caleyh qaal samictu rasuula allah sal ly slm yaquulu jihaaran gayra sirin rasuulka allaan maqlay si caddaan ah oo qarsoodi ahayn yaquulu isaga oo leh ina aala bani fulani laysuu biwliyaa'i ina aala bani fulan saas aniga halkan ya bani waa sax taas kalena marka waa jirta iyaduna ina aala abi fulan
reer banu fulaan laysuu biawliyaa'i ma aha xigtadayda. banu fulaankaas waxaa lagu sheegay inuu abulahab u ah, banu abilahab. qaarna banu abu sufyaan iyo way ku sheegaanba. marka abulahab buu u egyahay. abulahab baa aadna xigtadiisa u ahaa, kaafirna ahaa. awliyadayda ma aha, xigtadayda ma aha. xataa waxay isku khilaafeen fuqahadu qaraabada rasuulka sala allau alay wasalam ee sadaqadu ka xaraamta ahayd ma ku jiraan reer abulahab mise kuma jiraan. oo qaarkood waxay leeyihiin kuma jiraan, inkastoo haashimi uu yahay oo nabiga sala allau alay slam adeerkiisa laxama uu yahay, haddana kol haddii uu kufriyey ubadkiisii kolay ku tahay isaga kusoo dhowaan lahaa kuma ay jiraan arrintaas ee qaar leeyihiin. inamaa xigtadaydu waxaa weeyaan allahu wa saalixu lmu'miniin, alle iyo mu'miniinta saalixiinta ah yaaniga qaraaba ee xigtadayda ah. walaakin lahum raximun abulluhaa bibilaalihaa, qaraabanimayse leeyihiin aan biyaheedii ku qoyn doono. waa tii hadda aan soo sheegnay oo kale. muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaari. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. iga waran camal oo jannada igelinaayo wayubaacidunii min annaar, naartana iga fogaynaya. faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wali wasalam, markaasuu wuxuu yihi nebigu sal ly slam, tacbudu اllaha walaa tushriku bihi shayئa, allaad caabudaysaa adigoon waxba ugu shariig yeelaynin. watuqimu salaa, salaadana waad toosinaysaa. watu'ti zakaa, zakadana waad bixinaysaa. watasilu الraxim, qaraabadana waa xidhiirinaysaa. taasaa janno ku gelaysa marka. watasilu الraxim, saddexdaas camal, afarta camal buu u sheegay. muttafaqun calayhi. waanu soo noqon doonaayo 1212 buu ku imaan doona mar labaad. wa can salmaan ibni caamir addabi radia allahu canhu can الnabiy sal ly slam qaal idaa aftara axadukum falyuftir calaa tamrin, midkiin marka uu afuraayo timir ha ku afuro. fain lam yajid tamran, haddaanu timir helinna falmaa, biyaha ku afuro. faina alma'a tahuur, biyuhu waa kuwa wax tayro weeyaane. wa qaala wuxuuna yidhi alsadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa diraximi hintaan sadaqatun wa sila. sadaqada miskiin wax lagu sadaqaystaayo waa sadaqad, taa qof qaraabaha lagu sadaqaystaana waa laba oo waa sadaqa iyo qaraabo xidhiirin. waa tii aan kusoo marray xadiidkii zaynab oo kale, qisadii zaynab aan kusoo marray oo kale weeyaan isaguna. marka waxaa weeyaan xadiidkan kada wuxuu leeyahy rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan. tirmidi baa wariyo xadiid xasana weeyaan buu yidhi, buuna leeyahay. wuuna soo noqon doona, wax kusoo noqon doonaa 1238. laakiin xadiidku laba qaybood yuu kala yahay oo qaybina waa صحيح qaybina. So inshallah subscribe to my YouTube channel Hoy Somali. Subscribe, follow and share Hoy Somali on Facebook.